dhulku ma noola dadku ma noola waa la barakiciyo dadkii muwaadiniin Soomaaliyeed aan ahayn muwaadiniin qaranka dadkood u leedaan ahayn muwaadiniin asay u soo qaado wadankaan ahayn agooma haystaan ahayn xabad baan lagu ceyrshaa markaan nimaanaba loo wiilo askar ah naloo soo diraa ama 4 askar iyo hal Cabdibilaa naloo soo diraa meeshaan waxaana baabiyay dad aan noo naxayn dad aan ummadda Soomaaliyeed naxariis u haynana jajabiyay ra'iisul wasaare wasiirada xildhibaanada gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha cusub Maxamed Amiir ilaahay inta ka cabsataan Cali Yuusuf naga qabta wuxuu garab ka helay macallin Mahdi annaga nagamana awood badna nagamana muxuu ahayd dadahanimo fiicna magafayaasha aad shaatiga inta og galisay xamar nagu baabiinayo dadkii marasta iyo shacabka kugu dirahaya arag hal sano iyo barbaan qorraxda u taagana saacan dad baa laga gadahaya been baa nala ka sheegay xildhibaanadii beenta loo sheego lacag baa la siiyay la yiriyo lacagna lama siin nalooma imaan nalama warsanin yaatihin nalama dhihinin waxna warsaday iyo wax noo yimid ma leh xabad baa nala ku ceyrshaa markaan nimaan dad Cabdalla Shideeyaho meel ka aruriyay oo xafiis geeyay waa been warkaas macallin nuur la sharciyay haanta dheer la sharciyay daris nala ah saybiyaana liiba shulq sharciyayna intuu qaatama intii kala dadku u sharciyayna maxaa anaga naga takooray waxaan kamid ahay shacabkii serviska daawada laga jajabiyay 2023 bishii 8 tobankeeda maantana waa 2025 bishii 1 20keeda waxaan iskugu soo baxnay been abuur macallin Cali Yuusuf oo hoteelada ka sheegay xildhibaanada u sheegay waxaan leenahay warkuu sheegay waxba kama jiraan waa been dad buu soo kaxaystay xaafadaha uu ka soo kaxaystay dadkii hantidooda dhulka lagu baabiyay waa inteenaan intii ka maqan intii naga maqan waxaan leeyahay waxba kama jiraan dadka hantidooda lagu baabiyay waa annaga hal sano iyo baraan qaylinayna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya codsi baan u direynaa ra'iisul wasaare Xamse codsi baan u direynaa Maxamed Amiir gudoomiyaheena cusub codsi baan u direynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan ku leeyahay gudoomiye annagana xaq ha naga gelin adigana xaq darraha qaadanin dadka shacabka oo Soomaaliyeed oo dhibanayaasha oo hantidooda lagu baabiyay waa annaga madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa haddii dad loo sharciyeynayo annaga xaq ku leh annaga baxsanayno shina aan la shilinkii lagu sharciyeynayo dhulka serviska daawada macallin ninkaliya Cali Yuusuf haddaan isku tagno inaan ka lacag badan ma ahan kama lacag yarin inaan ka hanti badan ma kama hanti yaraanayno intuu kula yimid mid laba saddex jibaarkeed inaan kula imaana macquula madaxweyne natix gali naqadari tuug ha qadarina annaga naqadari waa tuug shacab Soomaaliyeed ninka u soo horkacay dudubis iyo baabiin iyo barakicin uusan xaq u leen Cali Yuusuf wuxuu ahaa nin annaga nala mida oo meesha boos ku leh oo ceel ku leh oo annagoo degan soo degay wuxuu garab ka helay macallin Mahdi annaga nagamana awood badna nagamana muxuu ahayd dadahanimo fiicna ilaahay laga cabsado madaxweyne ra'iisul wasaare wasiirada xildhibaanada gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha cusub Maxamed Amiir ilaahay inta ka cabsataan Cali Yuusuf naga qabta xoolo annagana ma siinin dhulna ma siinin dad kale masaakiin oo dhacaya 20 kun hadda dhulka hoos u gadana oo wuxuu leeyahay sharci baa nala siinaya madaxweynaha sharci ballan qaaday madaxweyne annaga xaq ku leh dhulkaas haddaan dawladda wax loogu qabanayn oo aysan dawladii lahayd ama wasaaradii lahayd intii loo xiro aan wax loogu qabanaynin way ognahay madaxweyne inaad muxuu ahayd halgan ku jirto annaga diyaar la ah shil alla shilkii aad wax ku sharciyeyso iyo in alla intii aad wax ku gadanayso adiga madaxweynaha annaga xaq ku leh madaxweyne natix gali shacabkaaga hal sano iyo bar dhawaaqa hayaanahay ha tix galinin nin garab ka raadsanayo nin meel u fadhiyo annaga diyaar la ah shil alla shilkii lagu sharciyeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa ku daraya dadka shacabka oo la dhacayo oo lacagtoodii wata waxaan leenahay dhulkaasi ma gadmo sharciina xasan sheekh maxamuud ma bixin wuuna diiday serviska daawada waxaan leenahay lacagtiina god ha ku shubinina dad badan oo aan naqaana naloo sheego lacag hoos looga qaadayo yaa lacagtiina god linkaga shubin sharci xasan sheekh maxamuud muusa dhiibin sharci hadduu bixinayo annaga xaq ku leh lacagtiina yaa been lagu qaadin dadweynow hal sana aan kaga digaynaa lacagtiina yaa been aan kaga qaadan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan cabasho ka nahay dhulkii 9 saaco habeenimo lagu laayay
oo agoomaha ayagii lagu bargadiyey oo waayeelada cagafta lagu jiiday in maanta dad laga gadanayo xildhibaanada ra'iisul wasaaraha madaxweynaha intaa waa u cabanayn warku ma seegana intaasaan dabaysha naallaa oo qorraxda naallaa oo caligaroobada ku hoos jirnaa wax noo soo jawaabo ma hayno madaxweyne waxaan rabnaa inaad noo soo jawaabto ilaahay dartii noogu soo jawaabto waxaa jira inaad aragto ninka la yidhaha cali yuusuf iyo cagafta uu wato iyo nimanka uu soo adeegsaday waddanka male aabba'daa waddanka u ah ilaahay weynaa ka sokow aabbihii waddankan hoos joognay adigaa ah madaxweyne warkayaga maqal u jeed xaqa arag ilaahay ka baq magafayaasha aad shaatiga inta og gelisay xamar nagu baabi'inayo dadkii marastaa iyo shacabka kugu dirahaya arag madaxweyne dhulku ma noola dadku ma noola waa la barakiciye dadkii maxaad dad ku tahay oo sharci ku leedahay waa dadka iyo ilmaha iyo marasta iyo haweenka maalin walba annagoo 70 jir ah nala xiraa oo nala jiidaa dhulkayagii baa nala ku jiidaya rayfiska daawada waxaan na jiidayaa waa askarta dalka inta tuugada ah oo shaatiga wadata oo magafayaasha ah oo burcadbadeeda dadka islaameed ku dhacday naga soo gaar gudoomiyaha cusub waxaan ka codsanaynaa waad cusub tahay xal hore lama socotid xalkaan arag waraaqaha lagula imaanaya eeg sharcigu meeshuu kaa jiro eeg yaan lagugu dhicin oqaan la'aan warqad tiimbaraysan yay kugu dhicin adduunyadan afar waaye afartaada balaayaha ku qaadan hal sano iyo bar baan qorraxda u taagana saacan dad baa laga gadahayaa been baa nala ka sheegay xildhibaanadii beenta loo sheegow lacag baa la siiyey la yiriyow lacagna lama siin nalooma imaan nalama warsanin yaa tihiin nalama dhihinin waxna warsaday iyo wax noo yimid ma leh xabad baa nala ku ceyrshaa markaan imaanaba loo wiilo askar ha naloo soo diraa ama 4 askar iyo hal cabdibilaa naloo soo diraa markaan soo istaagno iyadoo la cabirahaya aan imaano wax ma aanaan gadan wax ma aanaan gorgorsan nalama heshiinin cali yuusuf hameenkii cagaftii uu nagu kaxeeyo wili cabdibilaa noogu wadaa waa ogeysiis waa arag waa maqal ha la ogaado waxaan ahay dadkii shacabka ahaa ee laga burburiyey serviska daawada 2023 bishii 18 hal sano iyo bar ka badan waxaan ka caawinaynaa meediyaha madaxweyne xasan sheekh sanadkii hore aa jirtay dabayaaqadii xilligii oo madaxweynuhu dhici rabane nin la yiraahdo cali yuusuf aan soo weeraray wuuna baabiyey hadda sanadkii cusbaa aan aslahayn madaxweynaha cusbaa wuxuu nii qaban doonaane uu kula soo kowsaday 2025 bishii 20keedii maanta ay tahay waxaan isku imaanay dhulkiina laga dhacay in lagu burburiyey ee serviska daawada ayadoo rag masaakiina oo baladka jooga intii loo sheegay laga gadaayo oo loo eleenayo madaxweyne dhulkaas annaga xaq u leh haddii la gadaayo haddii la sharciyeynayo intaba annaga xaq u leh midda kale ninka la yiraahdo cali yuusuf xildhibaano iyo saraakiil iyo dad beena oo masaakiin inta hoteelka isku geeyo kuwana dadkii intaan qeylinay waa aan qanciyay wuxuuna siiyay male wuxuu noo qabtay male wax qabasho kama rabno cadaaladda waxaan ka rabnaa madaxweynaha Soomaaliya iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir warqadaha beenta oo la wareegayo aan loo soo saxiixin xasan shaqo ka diiday ha ka aqbalin dadka masaakiinta dhulkan lagu sirayo waxaan u sheegaynaa dhulkaas inaysan ku sirmin hantiyaa nooga jirta hantideennii ku baabiyey cali yuusuf waa shakhsi oo sana dhicin halka kan aan joogno waa meeshii la ka dudumiyey surface-ka warshada daawada ee Ecos Control weeye marka dadkii oo cabanayaan nahay horena waa u joognay horena cabashadana waa u gudbi jirnay hadda waxaan soo gaaray warbeen iyo barbagaana oo la leeyahay dadkii waa la heshiiyey oo lacag baa la siiyey wax ka jirana ma le arintaasi waxbana lama siin waxna la heshiiyeyna lama arko dhulna lama siin dhulkan oo markii hore si sharci darro ah la kaga jabiyey meesha baahi dawladda iyadoo naloo jabin ma taqaanaa iyadoo awarna la siin yaa subax aroortiina la weeraray sidii inaanu dambiliyaal iyo gacan ku dhiglayaal nahay ayaa nolol dhaqamay dawladdeena waxaan ka codsanaynaa sharafta leh madaxweynaheena codsi badan baan u dirnay hadda ka hor in doora baanu ka hadalnay halkan waxaan codsanaynaa horena u codsan jirnay in dhulkaana la ka qanciyo inaga xuquuqdeena waxa weeye dadkii masaakiinta ahaa oo rayidka oo ku noolaa baan nahay halkaa muddana ku noolaa waxaan codsanaynaa dadka turfada iyo beenta wada in la ka qabto dhulkeena ama annagana loo sharciyeeyo ama xuquuqdii dadka shacabka ay u lahaana la siiyo oo nal kaga diro waxa weeye sidaas ogeey dawladana waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha golaha wasiirada inta waxaan ka codsanaynaa cabashadeena gudoomiyaha gobolka Banaadir oo cusub waxaan ka codsanaynaa in arinteena dib loo eego
dad oo turfatooraa oo mataqaanaa qalinka dowladda ku shaqaysanaya oo been abuur wata ayaa dhulkan naga barakacshay nin la yidhaha cali yuusuf uu madax ka yahay dad badan ba ha adeegsadee sidaas awgeed dowladdana waxaan ka codsanaynaa sharafta leh annaga waxaan nahay dadkii ugu ba'naa oo la xaqiray oo la dhibaateeyey dowladdeenna waxaan ka codsanaynaa in ay naga soo gaarto dadka burcaduleedka ah oo na dhibaataynaya si sharaf leh waxaan uga codsanaynaa in ay arrinteenna dib u eegto na qanciso ama dhulka naga iibiso ama na dirto xaquuq aan ku tagno ayna siiso intaasaan ka codsanaynaa meeshaan waxaan codsi u dirsanaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud mudane Xasan Sheekh in badan meeshaan codsi kaaga dirsanaynaa annaga waxaan nahay dadkii laga dumiyay serviceka daawada ex control afgooye 2023 bishii 8 9 saac habeennimaana la jajabshay muwaadiniin Soomaaliyeed aan ahayn muwaadiniin qaranka dadkooda u leedaan ahayn muwaadiniin asay u soo qaado wadankaan ahayn agooma haystaan ahayn madaxweyne intaasan kula hadlaynay maxaa tiraahdaa inaan noo soo jawaabtaan jeclaalahayn ra'iisul wasaare xamse sidoo kale codsiyan ku dirsanaynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir maxaa amiin ninka cusub oo hadda la magacaabay si dheer aan balkii gudoomiyaha codsi kugu dirsanaynaa meeshaan waxaana baabiyay dad aan noo naxayn dad aan ummadda Soomaaliyeed naxariis u haynaan jajabiyay nin la yiraahdo Cali Yuusuf oo nootaayoyin yar xamar ku dhaxle oo shacaba aan noo soo adeegsaday macallin Mahdi iyo madaale kolay bini'aadanimada si ka baxsan oo nolol dhaqmay waxaan rabnaa wixii nagu dhacay wayba nagu dhaceene inaad noo eegtiin hadeer waa taariikhda hadda maanta la hadlaa waa 2025 bishii koobaad 20keedii xilliga aan hadlayno waxa hadda maqaalo nagu soo gaartay dhulkayni horta inuu dadka gadgadaayo kuna sheekaynayo dadkii meesha deganaa oo idaacadaha ka hadli jira waa aan qanciyo Cali Yuusuf oo ku sheekaynayo oo hoteelada intuu dad asagu soo aruuriyo xaafadiisa ka keena geeyay oo leeyahay dadkii qayli jira waaye ana qanciyay dhulka ku baacsanayo madaxweynaha Xasan Sheekh waxaan ku leenahay madaxweyne dhulka la dariska sida macallin nuur sida haanta dheer sida saybiyaan dadkii deganaa waa loo sharciyeynaa anaguna muwaadiniin ayaga lamid ahna lacagta aad rabto anaga ku siinayna xildhibaanada meeshan dadka deganaa matala sida dhawancad oo kale odawaay oo kale halkii maxaa tiraahdaa xildhibaanada habargidir oo meeshan dadka deganaa habargidir ka koobnaayeen maxaa tiraahdaa madaxweynaha noogu tageen lacagtay rabaan ayagu naga qaadeen maxaa tiraahdaa diyaaraan lana sida dadkaas muwaadiniinta oo reedaheena oo loo sharciyeynayo lacagta ay raadsadeen ma aanan raadso weyn laakiin si bini'aadanimada ka baxsan nolol dhaqmo oo 9 saac inuu ku soo dheelmado annagoo balki qaranka u agoontoownay nala jajabiyo nin shacabo nootaayoyin le oo soo raba soo ka yeelo waa cadaalad darro Xasan Sheekh oo si fiican noo maqal dhulkaas iyo godob kugu noqon iyo ceeb kugu noqon lacagta dadku oo ogolya waa ogolnahay dawladda amarkeedana ma diidanin annaga sidii dadka dariskeena la mariyay in la mariyaan diyaaruna sharci haday noqoto diyaaraan lana lacagta annaga shumanayna macallin nuur la sharciyay haanta dheer la sharciyay daris nala ah saybiyana liiba shulq sharciyayna intuu qaatama intii kala dadka u sharciyayna maxaa naga takooray maanta taariikhdu tahay 20 bisha koowaad 2025 waxaan joognaa meeshii laga dumiyay oo serviceka daawada ahay oo dad laga gadayo oo shacab oo laga gadayo oo la leeyahay sharci baan haysanaa wax sharci ma jiraan waxaan leenahay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo cusub waa in aan meeshaas sharciga aan u goynin adoona ka tala bixin nin la yiraahdo Cali Yuusuf ayaa dukumiinti u goynayo dadka gadayo dadkii laga kacshana waa taagan yihiin waxayna leeyihiin dadkii laga kiciyay waa la diray waa la qanciyay wax la qanciyay male waa taagan yihiin dadkii shacabka ahay waa shan taagan yihiin waxaan leenahay yaan lagu kahsoomin dhulkan sharci ma yaalo dadkii laga gadayo yayna ku kahsoomin yayna gadan waxaan leenahay wixii ka yimaado ayka caqabado ninkii lacag geliyo dhulkana sharci ma ahan dhulka laga kacshaa joogo hantidooda lagu burburiyay qof kasta intaas oo hantida laga burburiyay 2023 bishii 8 ayaa laga burburiyay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay dadkaas inuu dib u soo eego arintaana uu dib u fiiriyo nin la yiraahdo Cali Yuusuf ayaa waxaan qarbuday ay asaga ka dambeeyo rag uu soo adeegsaday gudoomiyihii hore gobolka Banaadir iyo taliyaha gobolka Banaadir ayuu qorshahan la wadeen marka ninka la yiraahdo Cali Yuusuf dhulka hantidii naga dhacay hantida naga burburtay waxaan leenahay madaxweyne dib u soo eeg iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir dib u soo eeg